صاحب الكوسد وهذا ورئيسي كوبان والله يلدونه معمولها بوتلان أفيشن كوليدج يوسف عبد القادر يوسف مركور منوشي كرتاس الله لو أساس بوتلان أفيشن كوليدج يبحيها وبوحنا جودها بوتلان يجودها الصومالية. ومع سنتاي سعيد ودوحي بوتلان أفيشن كوليدج وكوليدج بريفد وأساسين فنيرة بوتلان ومدة كتير أفيشن إندستريا وشيء كله أساسين وفوها إن لهلو فنيرة كتير باهيها كتير أفيشن كا بوتلان جودها الصومالية. intii aan wadnay courses-kan ku saabsan aviation-ka oo markii koowaad xarunta koowaad aan ka furnay magaalada Garowe sanadkii 2024-kana aan ka furnay Boosaaso sanadkan 2025-kana aan ku guuleysanay inaan xaruntii saddexaad ka furno magaalada Gaalkacyo. waxaan filayaa ahdaaftii ugu muhiimsanayd oo ahaa runtii xataa college in la ballaariyo oo saddex magaalo ugu waaweyn deegaanada Puntland dhalinyarada ku nooleed si siman xirfadaas ay u hesho laftirkeeda ayaa waxay tahay guul oo maantay uu ku noolanayo college uu gaaray dhalinyaradii xirfada la baray ee ka qalan jebisay muddada college uu shaqeynayay ay tahay maanta hormuudka wax ka bedelay baahiyihii ka jiray garoomada Puntland shirkadaha duulimaadyada travel agency-yada iyo wasaaradda qaarkood la xiriira hay'adaha duulista rayidka iyo wax ka bedelka iyo wax ku darista shuruucda caalamiga ee aviation industry-ga. waa maxay farsamooyinka iyo tababarada uu macad ku bixiyo? saddex qaab buu runtii ama saddex service buu college ku bixiyaa. adeegga koowaad oo college ku bixiyo waxa uu academic system arday ahaan in wax loo tababaro qofkii waxbarasho ahaan courses-ku iskugu jira high diploma certificates. adeegga labaad oo ah training inuu bixiyo weliba tababaro uu siiyo shirkadaha ka shaqeeya elaboorada haddii ay ahaan lahaayeen shirkadaha aviation security-ga haddii ahaan lahaayeen shirkadaha handling-ka iyo haddii ahaan lahaayeen airline-nada shirkadaha airline-nada duulimaad ka shaqeeya. qodobka ugu dambeeya oo ah service-ka uu bixiyo college-ka oo ah la talin inay sameeyaan la talin ku saabsiisan ay siinayaan dadka airline-nada doonaya inay kusoo biiraan inta aysan filligaas aysan gelin faa'iidooyinka u leeyihiin la talin laga sameeyo. waxaa kaloo la talin la siiyaa dadka aviation-ka doonaya inay dalka dibaddiisa ay kasoo bartaan ayagoo mar walba maraya oo basic knowledge of aviation ka qaadanaya college-ka Puntland Aviation College. qofku doonaya further studies waxbarasho intaa ka dheer college-ku intuu ka helay inuu kasoo barto wadamada dariska la talin iyo ku xirid college-yada partner-ka la nahay sida Kenya, Uganda ayaan ku xirnaa. waana mahadsantahay. maxaa lagu xushaa ardayda cusub ee doonaysa inay macadka kusoo biiraan? waxaa jira shuruudo lagu xiro? shuruudaha ugu muhiimsan oo maanta lagu xiro waxaa weeye in ardaygu horta filliga uu xiiseynayo. number 2 luqadda English-ka qofku inuu wax ku fahmayo. number 3 qof inuu yahay farax inuu ku soo noqdo ka mid noqdo dadka xirfadlayaasha ah. maanta sida aan ka warqabno waxaan aaminsanahay inaysan jirin shaqo la'aan ay jirto xirfad la'aan. qofku marka haddii xirfad la baro weliba waqti kooban la baro qof dhiiranna uu yahay waddankiisana aaminsan waxaan filayaa 100% self employed xataa in iskiis u shaqaysan karo iska daa qof inuu asaga u shaqeeyo. xataa baahiyihii suuq ka jiray iyadoo hadda ay yar tahay marka loo fiiriyo aviation-ka haddii xataa uu ka maarmo inuu asagu samaysan karo inuu iskiis u shaqaysto. ma jiraan shahaadooyin la aqoonsan yahay oo ardayda macadka ka baxda ay helaan? runtii annaga courses-ka aan bixino waxay iskugu jiraan high diploma iyo certificates. koorsooyinka marka college-ka ayaa si bareefada u bixiya. dadka college-ka ka baxana waxay u shaqraadsadaan waa elaboorada Puntland ama Soomaaliya ama airline-nada. waxaa kaloo hadda aan kuu sheegayaa in airline-nada qaar
ama dadka filliga aviation ku jira fahansan muhiimadda ay leedahay aviation industry-ga inay si toosa college-ka ula soo xiriiraan haddii ay u baahdaan shaqaale maadaama uu yahay college-ka keliya ee Puntland ka jira ee soo saara xirfadlayaal ku hubeysan aviation wayna dhacday marna maaha labana maaha saddexna maaha waxaa kaloo college-ku sameeyaa ardayda ka qalan bedelatay ama ka qalan jebisay koorsooyinka muhiimka uu dhigo in uu isla raadiyo qofkii iyo shaqadiisa isagoo weliba marka hore u qareynayo arrintaas runtii arrin aan muddo soo wadnay weeye waxaana rajaynaynaa dadka hadda xiiseynaya filliga inay kusoo biiraan in macadku qaybihiisa kala duwan si toosa insha allah ay ugu soo dhawaan doonaan shahaadaduna ay tahay shahaadadii dadka hadda college ka qalan jiibiyey qaar ka mida u sahashay booskii ay joogeen dokumentiga markay qaateen kadib boos ka sarreeya inay heleen qala qofka shaqaale caadi hadduu ahaa inuu qayb area supervisor oo kala noqday ma sheegi kartaa aqoonta iyo khibradda ay leeyihiin macallimiinta macadka aviationku macallinku course baa loo qaataa macallin walba waxaa jira major course waxa la yidhahda macallimiinta hadda qaybaha kala duwan waxay isugu jiraan macallimiin ajaanida iyo macallimiin soomaaliya qofka marka diplom ama high diplom ka dhigaya waxa ugu yar oo ku xulanaa qofka inuu leeyahay uu gaarsiisan yahay aqoon ahaan degree inuu gaarsiisan yahay intaa waxaa usii dheer work experience inuu leeyahay degree keliya kuma xulanno qofka inuu shaqo ahaan ama uu kasoo shaqeeyo elabor ama uu kasoo shaqeeyo airline ama filliga aviationka meel un inay noqoto si hadhowdii macallinkii galaasisku waxay iskugu jiraan casharo theory casharo observation ama training macallinku waxaa rabaa markuu galaas ku bixiyo ardayda markay tripka samaynayaan oo elaborada la geenayay macallinka laftarkiisii filligii aviationka inaysan ku cusbeen ee xafiisyadii la geenayey qalabkii la isticmaalayey goobihii ardayda ay booqanayeen nin cilmi badan u leh inuu yahay arrintaasna waa ku guulaysanay macali ahaan experience intaas la eg bay leeyihiin macallimiinta college-ka shaqeeya sidee ayaa u hubisaan in ardaydu helaan tababar gacmeed oo dhammaystiran filliga aviationka markii la joogo waxyaalaha hadda xooga aan saarno ardaydu inta badan maadaama aviationka safety-ga ay muhiim tahay waxaan sameynaa observation trainingka ardayga la siinayo waxaa wixii insha in laga tuso elboorka markii la geenayo haddii ay tegayaan meteorology-ga haddii ay tegayaan ATC-ga haddii ay tegayaan briefingka terminalka meesha ay tegayaan in keliya isha laga tuso wax caadiya lagu ammaanaynin oo la dhahayo shaqadan hala qabto sidii qof baabuur la barayo kala ma ah way ka duwanta waxaa kaloo jira documentiyo ardayda qaabka loo buuxiyo la baro ayagana training ka mid a haddii kii cimilada ay tahay haddii kii flight planning-ka tahay haddii ATC-ga ay tahay intaba marka laakiin ma jiro training sida science-ka oo kale qofku markii isbitaalada la geeyo oo nursing-ka uu yahay oo kale loo sameynayo laakiin tababarada inta badan ardaydu ay qaataan waa observation ma jiraan heshiisyo ama ishkaasi aad la leedihiin shirkadaha diyaaradaha ama hay-adaha duulista college wuxuu hoos tagaa wasaaradda duulista iyo hawada iyo garoomada Puntland uuna ka diwaan gashan yahay waana sababta maanta suurtagelisay college-ku inuu halkan soo gaaro la-aantii wasaaradda la-aanteed college-ku ma shaqeeyin waa college-ka keliya in wasaaradda ay ku faanto ay maanta ay leedahay dadaalo badan oo aan sameyno waxaa noo suurtagalay tababarada maanta macadka uu fududeynayo uu ka qabanaya deegaanada Puntland garoomada waaweyn shirkadaha ka shaqeeya ama ay soo dalbanaya ama la talinta aan kuu sheegaya ku saabsiisan airline-nada in ay mas-uuliyad gaar ah ay ka tahay aqoonsiga annagu aan ka haysano wasaaradda duulista iyo hawada ardayda dhamaysata waxbarashada ma helaan fursado shaqo sidee ayaad u taageertaan xirfadahooda mustaqbalka runtii ardayda dhamaysata waxay isugu jiraan dad hadaf college-ku meesha uu gaarsiisan yahay hadaf ka sarreeya oo tusaalahaan dadku aad aviation ereyga markay maqlaan pilot baa kusoo dhacda ama qofku inuu pilot noqdo ama pilot assistance ardayda marka hadafkaas leh waxaan sameynaa recommendation baan siinaa documentigooda ayagoo leh waxaan ku xirnaa meelaha ugu muhiimsan dhaqaalahaana markii la yidhahdo qof uu iska bixin karo inaan ku xirno ardayga rajaynaya goobaha shaqada inuu ka shaqeeyo waxay isugu jiraan qof shaqo toos u helaya oo mushaari noqonaya iyo qof internship helaya mar walba arrinta internshipka
waxaa lagu hogaamisay wasaaradda ardayda inta badan ka qalin jebisana internshipka way helaan walow filligan dadka soo gelay ay yihiin inta badan intaanu filligan aan ku jiray dad very smart ayagoo ka horeey fursadaha shaqo ee ka jira aviation industry garanaya baahida suuqa ka jirta garanaya kaliya u baahan qofkii shaqada in la istuso ma jiraan qorshe lagu ballaadanayo macadka sanadaha soo socda waxaan rajaynaynaa insha allah college-ku sida hadda uu ku socdo si ka wanaagsan inuu noqdo maadaama waxaa jira aan rajaynayna hadda inaan kusoo biirino courseska hadda aan bixino waxay xoogga saaraan maamulka iyo shaqooyinka iyo amniga garoomada iyo shaqooyinka airlinada koorsooyin kale oo diyaarsan baa jira ay ka mid tahay flight dispatch control ama qofka pilot assistance-ga ah aan rajaynayna macallimiin gaar inaan u keeno ajaaniba si looga faa'iidaysto waxaa kaloo jirta maado la yidhaha cabin crew aan jecel lahaa insha allah qorshaha 2026 college-ka ugu jira in lagu soo kordhiyo laakiin waxaa ka muhiimsan mar walba qofku inuu fahmo understanding faham guud uu ka leeyahay aviation industry-ga courseska hadda aan bixinana guulihii laga gaaray waxaa laga dareemayaa eelaboorada caalamiga ee Puntland oo shaqaalaha maanta 30% ah isla ay ka shaqeey inay yihiin arday ka soo baxay Puntland Aviation College college-ka wuxuu ka furnaa Garowe Boosaaso haddana waxa laga furay Gaalkacyo ma idin qorshaysataa inaad meel kale ka furtaan runtii sida aan ogsoonahay Puntland saddexda eelaboor baa ugu muhiimsan meelaha kale oo eelaboorra maaha airstrips ka jira oo macnaheedu airstrip waxa weeye facilitieski eelaboorka u baahnaa ma u dhamaystirna marka ama runway male waa meel iska ciida oo runtii diyaaraddu iskaga soo degto marka in aan meeshaas oo kale aan tagno waxaa ka horeeya in la helo eelaboor meesha inay leedahay taasaa marka waxay suurtagelinaysaa inaan ku dhiirano deegaano badan oo nala soo xiriiray oo college baahidiisa ay ka jirto way jirtaa laakiin waxaa xooga saarnaa ardaygii meel aan ku attach gareyn karno inay ka jirto deegaanka ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad u diraysid waalidiinta ardayda iyo bulshada guud ahaan ee xiisaynaysa inay kusoo biiraan Puntland Aviation College fariinta aan u dirayo dhalinyarada iyo waalidka xiisaynaya filligan aviationka inay kusoo biiraan waxaan filayaa inay tahay markii ugu wanaagsanayd ee ugu macquulsanayd iyo xirfadii waqtiga ugu yareed lagu daranayay inuu Puntland Aviation bixiyo dadka danaynaya xirfadan inay ka faa'iidaystaan uu furan yahay deegaanada Puntland qaybaha uu ka furan yahay xarumaha uu ku leeyahay Puntland Aviation College qofkuna wax shuruudo ay ku xirnay kaliya diyaar garowgiisii iyo xiisaynaya filliga si uu wax uga bedelo nolosha maanta uu ku nool yahay una hiigsado qof xirfad la oo baahida aviation ka jirtay ku jawaabi kara bari inuu noqdo mustaqbalkiisana anfaca laawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa waraysi kooban oo aan la yeelanay maamulaha Puntland Aviation College Yusuf Cabdulqaadir Yusuf aad iyo aad baa ku mahadsanyahay